guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa shaaciyay shirkadaha kala duwan ee ku guuleystay mashaariic ay hore tartankooda u baahiyeen waxaana halkaas ku sugnaa guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland shirkadihii kala duwan ee tartankani soo galay ugu horreyn halkaasi waxaa kaga dhawaaqay shirkadaha ku guuleystay tartankaasi iyo mashaariicda la shaaciyay gudoomiyaha guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen waxaan u ballansanayn inaan halkan idinka sheegno sidii loo kala helay qandaraasyadii 7 ahaa ee aynu furannay 16 bishii 9aad 2020 deyrka jaamacadda Burco waxaa ku soo tartamay 34 shirkadood waxaa ku guuleystay Nal Construction Company dhismaha lagu kordhinayo cisbitaalka degmada Boorame waxaa ku soo tartamay 20 shirkadood waxaa ku guuleystay Naasa Hablood Construction Company dhismaha cisbitaalka degmada Og waxaa ku soo tartamay 27 shirkadood waxaa ku guuleystay Al Noor Construction Company dhismayaal lagu kordhinayo cisbitaalka Arabsiyo waxaa ku soo tartamay 31 shirkadood waxaa ku guuleysatay Bino Construction Company dhismayaal lagu kordhinayo cisbitaalka degmada Balgubadle waxaa ku soo tartamay 24 shirkadood waxaa ku guuleystay Tayo Dis Construction Company dayactirka iyo dhismayaal lagu kordhinayo xarunta biyo kulule iyo Abaso waxaa ku soo tartamay 10 shirkadood waxaa ku guuleystay Som Kamil Construction Company dhaamka Bohol Qowlo waxaa ku soo tartamay 12 shirkadood waxaa ku guuleystay Modern Enterprise dhammaan shirkadaha guuleystay waxaan kula dardaarmaynaa inay qaranka u dhisaan dhismo tayo leh shirkadaha hadhayna waxaanu leenahay qandaraasyadii wali fari kama qodna soo dadaala kiisa sugna halkaas waxa ka hadlay agaasimaha guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland Axmed Cabdirasaaq Diiriye iyo gudoomiye ku-xigeenka guddiga qandaraasyada iyo xubin ka tirsan guddigaasi iyo shirkadii kala duwan ee tartankani galay kuwii guuleystay kuwii laga guuleystay sidaynu sloogeen 7 mashruuc ay dawladdu leedahay waxa ku soo tartamay 158 shirkadood dhamaanteen waxaan sloognahay waxa guuleysan doona in idin kamida dhamaanteen wada guuleysan meeno shirkadaha guuleystay waxaan kula dardaarmayaa ama ka rajeynaya wax fiican qaranka u dhisaan amaanadana xafidaan kuwa kale ma oranayo way guul daraysteen waxaan oranayaa iyaguna insha Allah bidmillahi kariim inay soo dadaalaan anigu wada sheegi doonaa waxa inoo yaala meesha liiskii cidii waxay maanta waxay u badan yihiin mashaariicda horumarinta caafimaadkuna waa noloshii waxa loo baahan yahay markaa xukuumadda Soomaaliland oo waayaha maanta adduunyada ka dhacay iyadoo dadku wada og yahay masiibada yani xanuunada dhacay haddana waxa ay xukuumaddu ku dadaalaysaa inay mashaariicda wixii ugu jiray muxuu ahaay qorshaha miisaaniyadda sanadka inay fuliso halkan waxaanu ka hadlay magaca shirkadda Tayo Construction dhowr goor hore aan ku soo tartanay maanaan helin maanta waan ku guuleysanay aad iyo aad baan uga mahad celinayaa inaanu dhismo tayo leh u dhisi doono qaranka dee waa hambalyeynaya haddii laga helay dhammaan kuwa helay iyo shirkadaha helay ee aan isku shirkadaha hayna iyagana waan ugu ducaynayaa in Ilaahay iyagana u fududeeyo dee waa sidaas u baahan weeye sida aad u soo dhigteen ee aad u doonaysaan ballan waxaan ku qaadaynaa waxaan ku dareemoyeenana waxba ka dhiman horta hawshu wacan bay u socotaa alxamdulillah talaabo wanaagsan oo xagga horumarka ama cadaaladda ama shaqooyinka tadawurka sameynayaan way ku socotaa si wanaagsan u socotaa Ismaan Axmed Ismaan Saab TV Hargeysa